إيران iyo Mareykanka mar kale ayay isfarsaareen xalay Mareykanka waxa uu duqeymo ka geystay gudaha Tehran ee dalkaasi Iiraan sidoo kalena Iiraan jawaab degdeg ah ayay ka bixisay weeraradaasi ee isdaba joog ahaa ee Mareykanku ka fuliyay Tehran iyadoo Iiraan ay duqeymo iyadana la beegsatay saldhigyada Mareykanku ku leeyahay Kuwait iyo Bahrain haddaba su'aasha weydiinta mudan ayaa waxay tahay sababta ee hadda Iiraan iyo Mareykanka mar kale dagaal uga dhex qarxay iyadoo la ogyahay in dhawaan uun heshiis dhex maray labadan dal warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa yaa bilaabay weerarka Iiraan se maxay ku hanjabtay weerarka argoosiga ah Iiraan ay sameysay maxay tahay sababta ay ugu beegsatay Kuwait iyo Bahrain sidoo kale warbixintan waxaan kugu wadaagi doonaa hadda xaalku waa sidee bariga dhexna xagee ayuu ku dambeyn doonaa waxaan ahay Fattaax Durdur halkanina waa Durdur TV haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad horeyna la joogteen waan kaaga mahadcelinaynaa arrintaadana waa inoo muhiim halka hoose ee faalada inoo wareeb mahadsanid taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa wax yar ka hor ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyay weeraro culus oo tan iyo xalay laga fuliyay gudaha Iiraan xilli xiisada u dhaxaysa labada dal ay sii kordhaysa isla markaana ay soo baxayaan weeraro iyo hanjabaado cusub oo laga cabsi qabo in ay sii balaariyaan colaadda ka taagan gobolka bariga dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanku ay tan iyo xalay weerareen ilaa 90 bartilmaamood oo military oo ay leedahay Iiraan bartilmaameedyada la weeraray ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen nidaamyada difaaca cirka xarumo iyo qalab military iyo sidoo kale agabka loo adeegsado ilaalinta xeebaha Iiraan taliska Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada fuliyay howlgalkan ay weli ku jiraan heegan buuxa iyo diyaar garow dagaal isla markaana ay diyaar u yihiin inay fuliyaan howlgal kasta oo uu amro taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka waa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ee Donald Trump ku dhawaaqistan ayay waxay muujinaysaa in inkastoo la soo gabagabeeyay wajigii u dambeeyay ee weerarada haddana ciidamada Mareykanku aysan weli hoos u dhigin heegankooda military iyadoo xaaladda gobolka ay tahay mid si degdeg ah ay isu bedeli karta dhanka kale ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa iyaguna waxay shaaciyeen in ay saacadihii u dambeeyay ay fuliyeen weeraro isxigxigay oo lagu bartilmaameedsaday saldhigyo ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalal ka tirsan kuwa qaliijka ilaalada kacaanka ayaa waxay sheegeen inay weerareen saldhigyada Arifjan iyo Ali al-Salaam ee dalka Kuwait iyo sidoo kale saldhigyada Al-Jufair iyo Sheikh Isa ee dalka Bahrain Iiraan ayaa sheegtay in weeraradan ay jawaab u ahaayeen duqeymaha Mareykanku tan iyo xalay ka fulinayay gudaha dalkeeda ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa sidoo kale soo saaray hanjabaad cusub iyagoo sheegay in ay balaarin doonaan saldhigyada iyo xarumaha Mareykanka ee ay bartilmaameedsanayaan haddii Washington ay sii wado weerarada ka dhanka ah gudaha Iiraan hanjabaadan ayaa sare u qaadaysa walaaca laga qabo in colaadda tooska ah ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ay ku faafto dalal kale oo gobolka ah gaar ahaan kuwa ay ku yaalaan saldhigyada ee Mareykanka iyo ciidamada jooga gobolka bariga dhexe xaaladda ayaa haatan maraysa heer aad u xasaasi ah iyadoo labada dhinac ay isku mar ku dhawaaqeen weeraro military iyo diyaar garow dagaal Mareykanka ayaa sheegaya in ay diyaar u yihiin amar kasta oo cusub halka Iiraan ay ku hanjabayso in ay sii balaarin doonto laba jibaari doontana weerarada ay ku beegsanayso saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe indhaha caalamka ayaa hadda ku sii jeeda tallaabooyinka xiga ee ay qaadi doonaan Washington iyo Tehran iyadoo laga cabsi qabo in weerar kasta oo cusub uu horseedi karo balaarinta dagaal iyo in dalal kale oo gobolka ah ay si toos ah ugu lug yeeshaan xiisada sii xoogaysanaysa dhawaan ay ahayd markii Mareykanka iyo Iiraan ay kala saxiixdeen heshiis xabad joojin ah iyadoona maalmo yar un kadib markii heshiiskaasi ay kala saxiixdeen ay soo ifbaxday in xabad joojintii la jabiyay waxaana dalka kale uu ku eedeynayay in dhankiisa xabad joojintii uu jabiyay balse xalay weerarkii ay Mareykanku ku qaadeen gudaha Iiraan ayaa waxay ka dhigan tahay in gabi ahaanba meeshu ka baxay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iiraan hadda xaaladda gobolka bariga dhexe ayaa waxa uu sii muuqdaa mid ka sii daraya sidii uu ahaa ee xilligii dagaalku uu bilaabanayay
iyadoo hadda laga cabsi qabo dagaalkan ee ka dhex qarxay Mareykanka iyo Iiraan inuu ku sii faafo dalalka dhaca gobolka gaar ahaan kuwa khaliijka maadaama dalalkaasi ay martigeliyaan saldhigyo uu leeyahay Mareykanka iyo ciidamada bariga dhexe jooga Mareykanka oo ay ku sugan yihiin dalalka khaliijka waxaana Iiraan ay ku hanjabtay in ay sii laba jibaari doonto weerarada ay ku qaadayso saldhigyada Mareykanku ku leeyahay gobolka gaar ahaan kuwa khaliijku ku leeyahay adigu sidee ayaad u aragtaa in Mareykanka iyo Iiraan mar kale dagaal uu ku dhex qarxo saameyn nooceys ayuu ku yeelan doonaa dagaalkaasi dalalka hadda soo koraya sida Soomaaliya aragtidaadii halka hoose ee faallada inoogu reeb mahadsanid